والله ما شاء الله marketku soo laabanaya yaa asaasaan fiican baa muuqata ninkii Trump oo kale ifafaalo fiican buu sameeyey inta sanadka ka hadhay 20 trilyan baa ku maalgelinaynaa buu yidhi suuqyada Maraykanka maanta votingkii u dambeeyey baa dhacayay maxay tolay sanadku uu dhaafiyo arrinta shutdownka uu soo gabagabeeyo so insha allah beri suuqu inuu bum ku furmaan rajaynayo wiigan iyo wiiga dambeba insha allah isdiyaariya markaa suumankaa la xidho halka ustaad sakriye arrintaas wataa sida u soo noqon doona insha allah arrintaas arrin ka khatar badan baa jirta habeen dhowta hagan aan telegramka kaga sheekeynaynay barnaamij kale isagana soo baxay oo hadda weli cusub oo ah in lagu yidhaahdo cryptocurrency baanu kuu maalgelinaynaa lacagtaada keen waan kuu maalgelinaynaa coin ama project 3 bilood 5 bilood wixii uu faa'iido kuu sameeyo 80% adaale 20% anagaale yaa barnaamijkaasaa soo baxay yar baa ila soo hadlay walaahi 2 qof baa weliba ila soo hadlay oo yidhi niman odayaa ayaa hawshaa noola yimi hawshaas ma jirtaa ma jirtaan ku uri maalinta lacagtaada jeebkaaga ka baxdo waa maalinta aad lacagtaada aad ka quusanayso marka suuqan baro adigu wax maal gashaan ku uri yaa laakiin qofba intuu saawa shakuuro yidhaahdo khaalid oo lacagan ku maalgeliyo sool baan ku maalgelinayaa sool maalintii faa'iido samaysa 80% qaado 20 anagaa leh yaa wax meesha ka shaqeeya maaha marka barnaamijka kale laakiin ma arkin marka tiktok uu iska hawl badayay maalmaha xaggaasaan ku badnaa caawo oo kale 1 hour baan joogaa asxaab qurux badan baa ila joogtay sharmaake xamse iyo asxaabaad fara badan oo kale nin mas-uula odayo halkan jooga waalidna inta badan uu noo imaado maasha allah dhalinyarta aad u dhiirigeliya marka tiktok waa la isku arkay taas waa taa so updateyada suuqa haddaan yaro fiiriyo niisyo fiican baa maanta jiray oo ay ugu waaweynaayeen FAA hay'addan duulista Maraykanka ayaa soo saaray amar hakineed oo ah ground stop garoomada New York, John F Kennedy iyo Chicago sababtoo ah shaqaale yari baa jirtay bay yidhaahdeen sidoo kale mas-uul ka tirsan markaa Bank of Canada isna wuxuu ka digay suurtagalnimada in hoos u dhac ku yimaado heerarka nolosha low standard of living ee dalka Canada sidoo kale senatorka maxay tolay John Tuna ayaa sheegay in sanadku sii fadhin doono ilaa heshiis rasmi ah laga gaari doono furitaanka dowladda Maraykanka isbuucanna la soo gabagabayn doono arrintaas waa boolish suuqa oo waxyaali maanta BTC upgrade sidoo kale Scott Bessent wuxuu sheegay in sanadku uu noqon doono mid aad u weyn Trump xal podcast buu qabtay wax badan ayuu ka sheekeeyey khudbadiisa waxaa ugu muhiimsanayd in arrintii Obamacare ay weli isku hayaan halkiina uu ka taagan yahay oo uu yidhi waxaan kala diri doonaa lacagaha la siinayo qolooyinkan caymiska ka shaqeeya lacag dambe waan bixinaynaana ma jirto arrinta shutdownku markaa u xidhayeyna ay sanadku isku fahmi lahaayeen qoladan dimuqraadiga iyo republicanka wataa sidoo kale wuxuu sheegay in 20 trilyan uu gelin doono dhaqaalaha Maraykanka ka hor dhammaadka 2025 almost waxaa ka hadhay bil iyo 20 cisho intaana waxaan ku rajaynaa suuqu inuu dhaqaaq fiican sameeyo lacag fiican ay soo gasho sidoo kale wuxuu saxiixi doonaa buu yidhi xeerar kiribta ka mid ah ayaan saxiixi doonaa wiigan buu yidhi arrintaasina waa boolish oo wuxuu ku soo sheegay podcastigiisa xalay laga qabtay sidoo kale waxaan arkayay in maxay tolay Eric Trump isna uu sheegay in BTC 1 milyan ay gaadhayso sanadka Maraykanku maanta wuxuu laga yaabaa inuu maalinta 9 uu soo saaro ugu dambeyn shuruuco fiican oo la isku afkarto lagana qaado dowladda xidhitaankii ugu dheeraa muddada 39 cishaana socday sidoo kale Trump wuxuu ku dhawaaqay in $2,000 la siin doono calaa qof kasta oo Maraykana ama dividend payment waxa la yiraahdo marka laga reebo dadka dakhligoodu sareeyo maaha qof kasta waxa siin doonaa $2,000 Michael Saylor oo kale isla maanta wuxuu soo qoray trackingkiisa caanka best continue oo ah inuu Britory BTC iibsan doono insha Allah sidoo kale BTC mar way too dhaqaaqday 104,000 ay soo cagacagisay 3,500 baan Ethereum la gaarsiiyey isticmaal bararkii Maraykanka inflation-kuna hoos ayuu u dhacay taasoo kor u qaadaysa markaa filashada hoos u dhigida ribada ama rate cut waxa loo yaqaan bisha December hadda 2.5 buu kusoo ku noqday laakiin maalmo dhowta 2.7 buu gaaray baasadoo kale isna wuxuu sheegay in digniin ka bixiya haddii ilaa isbuucan ay dowladdu sii xidhnaato in khasaaraha maxay tahay xidhitaanka dowladdu ay sii socoto in dhaqaalaha dalku sii xumaan karo marka in degdeg arrinta isbuucan loo soo gabagabeeyo ayuu cadaadis ku saaraya marka isbuucan insha allahu tacaala rajaynaa soo gabagaboobo laasta haddii kale isbuuca dambe insha allah soo nuyu sidaas ugu waaweynaa laakiin waxaan ku jirnaa meel xasaasiya
وانا دقائق بيسكو ديارنا ان شاء الله سيدي عادة هاي السوق اذا حرجنا بيسنتيجي وين كعان سيدا رجين وكو سعودي شكور وكو سلام مستر بلان ام تريد يا محمود وما انت عم تشيدو aad iyo aad u mahadsan tahay waxaa kaloo aan rabaa inaan kugu daro labadii waaweynaa token coin labadii coin ugu weynaa allah weyne ETH iyo Sol oo maanta dhaqdhaqaaq sameeyay taas maxaa ugu dirweys newskaaga because labadan in muddo way fadhiyeen week ka badan saas maaha Khaalido نيستول والله دقائق في عنك ما أعرف عنها هانتيدا بقول لي هي كنترون يا بقول لي لبي لحدا بيكون نقنيسا لكن سول بقول شنو لحدا بقول تدوات هدي شي بيصير دقائق وين سمعنيسا يا لكن يمكن بقول لي افر لحدا ما لقيت عليها بقول كل لحدا ما يشوفته ساكا بقول افر كنت بيشوفتي لكن دقائق واحد سمعني سي كاش يا سي كاش واللي بكو سعودا ما هي جري بيقوم مروي حضرتان سي كاشا سي كاش wuxuu marayaa 690 maanta maraan VIP da joognay doorkii wuxuu marayay 500 iyo 60 meelaha liquidity u qaatay doorkii waa la bamgareeyay 656 ku soco 656 maraya